waa nin oday ah oo ka soo jeeda dhulkii reer Soomaaliya laakiin waxa uu ku nool yahay waddanka Sacuudiga. Waxa uu ka tegay magaalada Madiina isagoo u socdaalay magaalada barakeysan ee Makka si uu u soo guto waajibaadka xajka. Wadaadkaasi Soomaaliga ah waxa la socda oo sanadkan xajka la aadaya xaaskiisa. Isaga iyo xaaskiisuba waxay isku diyaariyeen safarkii xajka. Sanadku waa 60maadkii. Baabuur badan ma jirto. Wadada Makka iyo Madiina isku xirta waa raf oo aan lahayn geed iyo hoos madaxa la galo xilliga cadceedu ay kulushahay. Si kastaba ha ahaatee, wadaadkii Soomaaliga ahaa iyo xaaskiisu waxay soo gaareen magaalada Makka iyo xaramkii. Waxay dhameysteen xajkii iyo waajibaadkiisa. Laakiin waxa sugaya safarkii ay ku yimaadeen. Waxay doonayaan inay ku noqdaan magaalada Madiina iyaga oo maraya wadada Makka iyo Madiina isku xirta. Carigu waa nabad, si lama hubo inay nabad ku tagi doonaan Madiina. Intii ay sii socdeen oo ay wadada ku sii jireen, waxa istaajiyay askar wadada joogtay oo malaha dawladda Sacuudiga ka tirsanaa. Wadaadkii Soomaaliga ahaa waxa loo saaray dhinac, sidoo kale xaaskiisana dhinac kale ayaa loo saaray. Isma arkaan labadoodu, laakiin waa ay sheekaysan doonaan waxa ay kala kulmaan askarta. Meeshu waxa ay u muuqataa goob lagu baaro gawaarida iyo dadka, bar kontarool oo amniga laga sugo. Askartii waxa hunguri ka galay gabadhii uu qabay wadaadka Soomaaliga ah, waxa ayna ku xadgudbeen inantii iyaga oo wadar ah. Mar dambe ayay fasaxeen markii ay kufsadeen. Waxaase meel aan fogeyn ku sugaya wadaadkeedii. Durbaba lama aysan wadaagin in dhibaato noocaasi ay u geysteen askarta. Laakiin mar ay u dhow yihiin magaalada Madiina ayay la wadaagtay arrintii. Odaygii aad ayuu uga carooday falkaasi, balse markaasi waxba ma awoodo waana xilli dambe. Subaxii markii la gaaray ayuu wadaadkii Soomaaliga ahaa isaga oo aad u careysan waxa uu tagay safaaradda Soomaaliya ee dalka Sacuudiga. Safiirkii Soomaaliya ayuu helay, waa uu la hadlay waxa uuna u sheegay in dhibaato noocaasi ay ku dhacday. Safiirkii waxa uu galay arrimo kale isaga oo odayga u sheegay in uu ku mashquulsan yahay warqado loo soo diray iyo shaqooyin kale. Sida qisada lagu soo wariyay, nin ag fadhiyay safiirkii oo ka mid ahaa odayaashii Soomaalidii hore ee dhiigga lahaa ayaa ka xanaaqay damiir xumada safiirka. Inta uu isheen waayay ayuu dharbaaxo wejiga dhiftay safiirkii. Waxa uu ku yiri, waxa tahay qayrul mas'uul. Muwaadin ayaa ku yimid oo cirdigiisa lagu xadgudbay. Markaasi ayuu odaygii waxa uu gacanta qabtay wadaadkii dibanaha ahaa ee xaaskiisu lagu xadgudbay. Waxa uu u geeyay amiirkii dhulkaasi oo lagu magacaabay Boqor Faysal. Waxa uuna ku yiri bal dhageyso ninkan waxa uu leeyahay. Wadaadkii Soomaaliga ahaa waxa uu amiirkii uga sheekeeyay dhacdadii ku dhacday oo ay askartu u geysteen. Amiirkii waxa uu amray wiilkiisa in uu diyaarad helikabtar ah qaato oo uu soo xiray nimankaasi. Ugu dambeyn waa la soo xiray askartii dhibaataysay wadaadkii Soomaaliga ahaa iyo xaaskiisa. Waxa ay ahaayeen 4 askari oo ugu dambeyn qirtay falka ay geysteen. 4tiiba waxa uu amray in la dilo amiirkii, kadibna meel fagaaro ah la dhigo meydkooda si dadku ay ugu cibro qaataan. Markaasi kadib waxa ay magaaladaasi noqotay halka ugu ammaanka badan Sacuudiga. Tani waa qiso dhab ah oo ku dhacday nin oday Soomaaliyeed ah iyo xaaskiisa oo ka yimid xaramka Alle. Waxa aad u xiiso badan sida weyn ee qiimaha leh ee loo weyneynayo sharafka qofka Soomaaliga ah iyada oo ay magaaladu tahay Madiina, cariguna Sacuudiga yahay. Markaad u fiirsato maanta sida looga soo tarxiilo Soomaalida ku nool iyo qiimihii ay ku lahaayeen, waxa ku muuqanaya farqigu inuu yahay burburka dalkeena ku dhacay. Waxa sidoo kale laga baran karaa qisadan ereyga mugga iyo miisaanka leh ee cadaaladda, laakiin dadku si fudud ay ku yiraahdaan. Maalinkii ay dhacday dhacdadan, wixii ka dambeeyay dadku waxay ka tagi jireen dukaamadooda oo furan iyaga oo aan ka cabsan tuugo iyo dad dhaca. Taasina waa tusaalaha cad haddii cadaaladda la fahmo in ay yaraan doonaan mushkiladaha faraha badan. qisadan aan ka sheekeeyay oo ka warramaysay dhacdadii wadaadkii Soomaaliga ahaa ee xaaskiisu lagu xadgudbay waa qiso dhab ah oo 60maadkii ka dhacday dalka Sacuudiga. Waxa soo wariyay Sheekh Maxamed Idris oo sida uu sheegay ka soo dhugtay nin oday Soomaaliyeed ah oo dadkii reer Sacuudi ah barigaasi.
bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee